markana daawadayaal ku soo dhawaada warkii hore dhammaystiran waxaynu ku bilaabaynaa gobolka Sanaag oo magaalada Badhan haweenka ku nool qaar ka mid ah ay gaarsiiyeen jiida hore ee ciidamada difaaca Puntland ay ku sugan yihiin ee degmada Yuube ee gobolka Sanaag taakula isugu jirta biyo daawooyin iyo sidoo kale hagabyo kale oo ay ugu talagaleen in lagu dhiirigeliyo ciidamada difaaca Puntland ee gobolka Sanaag Sharmarka Cabdulqaadir wariyahayaga ayaa faafinta warkani inoo soo diray haweenka magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxay gaarsiiyeen ciidamada mas'uuliyiinta ee dawladda Puntland ee ku sugan jiidaha hore ee degmada Yuube agab isku jira raashin biyo iyo dawooyin ay haweenku si iskooda iskaga soo aruuriyeen kuna dhiirigelinayaan ciidamada waxaana jiidaha hore ku sugnaa xilliga ay haweenku soo gaarsiinayeen agabka wasiiro saraakiisha ciidanka iyo agaasimayaal guud oo ka tirsan dawladda Puntland Sahra Libaaxay Faadimo Cali Nugaal oo matalaya haweenka gobolka Sanaag ee ciidamada soo gaarsiiyay agabka ayaa sheegay inay mar walba garab taagan yihiin ciidamada difaaca dawladda Puntland ka haween ahaan ay ka qayb qaadan doonaan difaaca dalka wallahi aad baan ugu faraxsanahay inaan u nimaadno ciidamadayadii gaasiinta ahaa oo jiida hore joogay aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaarno oo la qaybsano boorka iyo dhaxanta ay joogan aad baan u faraxsanahay maanta farxadeeda lama koobi karo anigoo la jooga ciidankii xoogga dalka ee wadankooda ay daafacanayay wadankooda ay laashanayay ay ku jiraan wasiiradii agaasimayaashii xildhibaanadii aan cidina u maqnayn ma sha Allah la yabaarig waan ku faraxsanahay iyadoo dhibtaas iyo hawshaas dalkooda ay u horeeyaan sababtu waxa weeye dalkooda iyaga iska la cidina kuma qabsan karto laakiin qoladan malaa dal yaraan baa hayso oo dalka aan ilaahay ku soo socdo waxaan u sheegayaa dalkan ma lihidin idinku waxba ku soo qaato maxmaysanina iskaga noqda rag ilaahay baa jooga rag baa ilaahay ku beeray rag baa ilaahay siiyay ama haydin yaraada ama haydin badnaadeen inta ilaahay idinku beeray baad leedihiin cid wax kale ma kuma darsan kartaan waxaan idin sheegayaa inaad idinkoo nabada iska laabataan ma rabno anagu dhimashadiina iyo dagaalkiina iyo hawshiina daris baynu nahay dad wada degan baynu nahay waxaan idin sheegayaa wiilasha soo socdow ama kuwa dabada ka soo wadow inaydan dhibi khayr lahayn dhibta inaad ka noqotaan haddaydan ka noqon tii waxay ila tahay hadhowdii cidna wax lama saaro annagu idin maana soo doonan idinkaana soo doontay dalkan ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidii uu ku beeray baa daafacanaysa hana ku talaynina inaad heshaan hana ku talaynina inaad qabsataan taasi waa wax aan meesha oo imanan doonin marka waxaan idin sheegayaa inaad iska noqotaan idinkoo nabada aan belo idin helin inaad wadankii ka timaadeen ku noqotaan hadduu yar yahana kaasaa ku dhalateen hadduu badan yahana kaasaa ku dhalateen waxaan idin sheegayaa waad aragtaan wasiiradayadii halgay waxay ku jiraan furinta hore xildhibaanadayadii agaasimayaashayadii waa sidaasoo abadaa cid noqonaysa ma jirto hore aan u soo soconnaa marka wadankan aydan lahayn intaan dib idinka soo gaadhin inaad iskaga noqotaan baan idin sheegayaa ciidanka yagaan u nimi maanta ciidanka yaga aad baan u soo dhaweynaynaa halgamayaasha wadankooda u halgamaya waxaan u keenay quraac haddana waanu keeni doonaa insha Allah saasaan ula shaqeynaa rag iyo dumar waanu taaganahay waanu halgamaynaa haddaydan noqonna dumarka yaga idin la dagaalmaya rag yaga iska daawo naga noqdo hadda shahaadataan oo ilaahay taqaanin naga noqdo dalka yagi baa joogtaan ciidiini baa ka timaadeen naga noqdo haddaan noqon weydaan idinkaas yaqaana Fuad Ahmed Warsame Xanaano oo kamid ah saraakiisha ku sugan jiidaha hore ee degmada Yuube ee gobolka Sanaag ayaa ka gudoomay haweenka agabka ay u keeneen ciidamada difaaca dawladda Puntland aad waxaan ugu mahadcelinayaa hablaha gobolka oo had iyo goor u heelan dhinac istaaga ciidamadooda aad baan ugu hambalyeeynaa maaha markan qura markay noo yimaadeen markasta ama xalajoog hala ahaado ama xaaladaha lagu jiro gabdhaha gobolku heegan waxay u yihiin inay garab istaagaan ciidamadooda aad baan uga mahadcelinayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda iska leh saaka waxay noo keeneen habluhu xoolo isugu jira cunno biyo agab caafimaad iyo wax la mid ah aad baan uga mahadcelinaynaa hablaha dadaalka badan ee ku jiraan ilaahay khayr ka siiyo annaguna kuwa khasaariya tacabkooda insha Allah noqon mayno waxay noo garab taagan yihiin si mug leh bay insha Allah nooga helayaan wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland Cabshid Cali Geela ayaa sheegay in haweenka gobolka Sanaag waligood ay ka qayb qaadan jireen difaaca dalka runtii aad baan ugu faraxsanahay hablaha had iyo goor la garab taagan ciidankooda agabka haday ahaan lahayd cunno haday ahaan lahayd caafimaad haday ahaan lahayd dharkii haday ahaan lahayd dawooyinkii
runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa hablaha ka soo jeeda Puntland gaar ahaan gobolka Sanaag runtiina waxay noo tahay guul mar haddii la isku xiran yahay oo wali diirkii leeyahay waxaan isleeyahay aad baan loo difaacinayaa wadanka runtiina aad iyo aad bay mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad inta waxaan ku darayaa qoladan la leeyahay jeegaanta nabadiidkan siday habluhu u sheegeen dalku dadkii lahaa baa difaacanaya dalkuna maaha inaad maalin walba nabadii waa naga badatay maantay insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa inaan soo gaaro ceergaabo haddii ilaahay nafta noo daayo sida ugu dhaqsaha badan hadday naga noqdaano marka nabad naga noqdaana dee waa falilaahi alxamdu haddii kalena dulqaadku wuu dhammaaday shirmarkaa duqaadi jaamac Puntland TV jiida hore degmada Yube ee gobolka Sanaag.